magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa maanta gaaray erga aad u fara badan kuwaasi oo qayb ka ah erga halkaas uga furmi doono shir ay dhawaan cilaamiyeen mid ka mid ah beelaha dega maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug State xildhibaano senataro qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiil ayaana gaaray maanta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug beesha Habargidir oo kamid ah beelaha dega Galmudug ayaana waxay sheegeen in halkaasi ay ku qabsanayaan shir ay kaga hadlayaan aayahooda mustaqbalka shirku intuu socdo waxaa halkaas looga hadli doonaa ama lagu soo saari doonaa 4 guddi oo kala ah guddiga dhaqaalaha guddiga amniga guddiga farsamada iyo guddiyo kale oo ay sheegeen beeshu inay aayahooda kaga tashan doonaan gudoomiyaha magaalada Hobyo ayaana halkaasi saxaafadda kula hadlay isagoo soo dhaweeyay ergadii kala duwan ee maanta gaartay magaaladaasi maanta intiina martisharafka ah ama deegaanka ku atirsata aad maanta noo joogtiin aad ku sugantiin magaalada Hobyo hadday noqon lahayd saraakiishii dalka ugu sareysay hadday noqon lahayd xubnihii golihii dawladda ugu sareeyay ee waddanka soo maray ama se kuwa hadda ah xilalkaya ama ha noqoto kuwa aan xilhayn xildhibaanada sharafta leh dhammaan guddiga qabanqaabada waxaan leeyahay horta marka hore ku soo dhawaada Hobyo welcome to the Hobyo soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan laba kelmad oo kooban aan ka iraahdo shirkii aad noo iclaamiseen oo aad noogu hiiliseen in Hobyo lagu qabto waa idinkaga mahad celinayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin mar labaad Hobyo runtii markaan ka sheego waa magaalo indhiina aad ku arki doontaan mar raba inaan faahfaahin ka bixiyo hadday wanaagsantahay iyo hadday xuntahay hadday liidato iyo hadday horumar samayso dadkii laga rabay inay Hobyo dhisaan idinka meesha fadhiyo kuwa idin la midka waa kuwii laga rabay inay maanta hadii Ilaahay ku roon yahay ay noqoto inay ayaga base u noqdaan hadii Ilaahay ku roon yahay Hobyo iyo Galmudug guud ahaan laakiin nasiibka meesha la dhigay iyo waqtiga waxa uu marka maanta gugash la dhigay meesha waxay u tahay base iyo barti bilowga ahayd ee ummadaas ama lagu soo celin lahaa ama magaalada asaageen magaalooyinkooda way dhisteen guriyihii dawladda iyo hantidii dawladda ayaa lagu dhisanayaa dekada iyo waxyaabo lamid annagana waxaan dhisan waxaan qabaa marka shirkan inuu noqdo kii ayadana ku dhismay qaraabada dhigatay ay ku dhismayeen kii ummaddu ku kala nabadgeli lahayd macnaheedu waxa waaye adna inaan nabad heshid ummaduna kaan nabad hesho adna aan nabad geshid inaan nabad galno ummadda kan laga nabad gasho annagana dhibkeena iyo mashaakilkeena aan xal u helno waxaan qabaa marka muhiimay noo tahay in Hobyo shirkan lagu qabto waana ku mahadsantiin guddiga qabanqaabada ee barnaamijkan noo ogolaa in Hobyo lagu qabto annaguna waxaan diyaar u nahay wax kasto inaan kala harin tabartanada meesheena gees hanaan kula yaabinina waa magaalada